madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Washington ee dalka Mareykanka. ujeedka safarka madaxweynaha ayaa waxa uu ku qotomaa ka qaybgalka meertada 77 ee qaramada midoobay. madaxweynaha ayaa inta uu dalkan ku sugan yahay waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalkan Mareykanka oo ka mid yahay wasiirka difaaca ee dalkan Lloyd Austin iyo la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxay hordhigayaan aragtida iyo qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed kala soo kulmeen dhibaato xooggan. haatan la joogo xilligii laga gacan siin lahaa dowladda Soomaaliya inay dhibaatadaas ka samata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan gobolka.